In just 7 days, 1 million people have fled Ukraine, uprooted by this senseless war. I have worked in refugee emergencies for almost 40 years, and rarely have I seen an exodus as rapid as this one. Hour by hour, minute by minute, more people are fleeing the terrifying reality of violence. iyadoo ruushku uu sii wada duqeymaha uu ku hayaan magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ee lagu magacaabo Kharkiv, isla markaasina ay go'doomiyeen laba dekedood oo istiraatiiji ah ayay qaramada midoobay waxa ay Khamiista maanta sheegtay in ka badan 1 milyan oo qof ay ka qaxeen gudaha wadanka Ukraine kadib duulaankii Ruushka uu ku qaaday wadankaasi. tirada guud ee hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay oo ay sii deysay wakaaladda wararka lagu magacaabo Associated Press ayaa tilmaamaysa in ka badan 200% dadka Ukraine lagu khasbayo inay dalka ka baxaan wax ka yar 7. qaramada midoobay ayaa barakaca Ukraine ku tilmaantay qaxootigii ugu dhaqsiyaha badnaa qarniga. daadgurayn xawli ah ayaa ka socota magaalada lagu magacaabo Kharkiv oo ah caasimadda labaad ee wadanka Ukraine, halkaasi oo dadka degan ay quus ka taagan yihiin inay ka baxsadaan madaafiicda ku soo dhacaysa iyo duqeymaha buux dhaafiyay saldhigga tareenka ee magaaladaasi. habeennimadii xalay ahayd, wariyaasha u shaqeeya wakaaladda wararka ee lagu magacaabo AB ee magaalada caasimadda ee Kiev ayaa maqlay ugu yaraan hal qarax sida iyagu sheegeen, ilaa iyo haddana ma cadda bartilmaameedyada qaraxyadaasi. bayaan ka soo baxay taliska guud ee ciidamada Ukraine ayaan looga hadlin weeraradan cusub iyo qaraxyada ay ciidamada Ruushku geysteen, iyagoo kaliya sheegay in ciidamada Ruushku ay isku soo urursanayaan ayna isku dayayaan inay gaaraan duleedka waqooyi ee magaalada caasimadda u ah wadanka Ukraine ee Kiev. khudbad muuqaal ah oo laga duubay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu ugu baaqay dadka reer Ukraine inay sii wadaan iska caabinta, wuxuuna wacd ku maray in kuwa soo duulay oo uu ka wada Ruushka aysan heli doonin hal daqiiqo oo aamusnaana. waxauna ku tilmaamay askarta Ruushka inay yihiin caruur jahawareersan oo loo adeegsanayo inay barakiciyaan, sidoo kalena ay burburiyaan qarannimada iyo sidoo kale dhulka wadanka Ukraine oo daris la ah wadankaasi Ruushka. Cabduqaadir Maxamed, wararka RTN, Nairobi.